السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقولكم وبقول وأنا السلام يا وولاشين حمد الشكري وأنا كذا إيمان حمد ناتشرالس وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض يا مر صدحات ما أنت وحن رباه إن هنكلا فائدة يسنوه شيء مركز تعين استعماله صومالي هذين النهاي لكن منافع عيدكو سؤال ياد وبدن يهي oo aad balaaran yahay waxyaalo aad maartay cudurro aad dadka u dhibana lagu daaweeyo marka shaygaasi muxuu yahay baan oranaynaa maanta shaygaasi waxa weeyaan waa kumun ama kaamuun ama xawaash dhuudhuub ama xawaash bariis dadka qaar bas ay u yaqaaniin wakaasa waxaan rajaynayaa si wanaagsan in loo arko حواش دودوب ويان حواش دودوبكو محو وناكسن يهي ويان نمبر 1 horta wuxuu wanaagsan yahay hal xanuun oo soo reerso dadka Soomaaliya joogay dadka Soomaalida aad maaragtay u daashaday xanuunkaasina wuxuu yahay waa xanuunka la yiraahdo gaaska waa gastric gas laabjeex acid reflux stomach bloating magacyo badan buu leeyahay marka number 1 horta xanuunkaas in maanta diiradda saarayna iyo wixii kale aleena ka gaarsiiyo lama soo koobi karo faa'iidadiisa balse kaas ma daawo aad noogu badan yahay haddii aan Soomaali nahay hadda ka hor dhaqaadiir ba hadda waxay radeen dhexgaliyo hadda ka hor dhaqaadiir ba waxay isweydiisay Soomaalidu waxay ka yimaadeen wadan aan cunto kiimikaal ahayn wadan cad iyo caano laga cabo markay qurbaha tageen muxuu gaasku idinku badan yahay gaasku muxuu idinku badan yahay baa la yiri marka gaasku wuxuu noogu badan yahay waxayna aqoonin sida cuntooyinka la isugu daaweeyo iyo cuntooyinka gaaska saysan kugu kiciyso looga afford garay calaashan sida looga joogo cuntadii gaaska ugu kicinaysa intaasina waa akhbaaradan dhaqaadiir ka soo xigtay marka aynu u bilaabano xawaash dhuudhuubku number 1 wuxuu guuriyaa ama kaxeeyaa ama daawo u yahay gaaska horta ya gaaska waa sidaad isticmaalaysaa shaah baad ka dhiganaysaa isagoo tabtaas biyo kulul ku shubaysaa shaah ahaan baad u cabaysaa subax kasta number 2 xanuun kasta oo caloosha la xiriira oo maxay haytay ama gaas ha ahaado ama kansar ha ahaado ama caloosha gasku ka dhamaado ha ahaado kansarka gadaal baynu uga dhaadhici doonaa laakiin caloosha gasku ka dhamaado oo gaasku kiciyo number 1 daawo u yahay xawaash dhuudhuubku number 2 liverka waxaa la ogaaday isagana inuu daawo yahay liverku raali ka ahaado waa kelmad ingiriisi waxa la leeyahay beerka waxaa la ogaaday inuu daawo u yahay oo beerkana kobciyo cudurrada ka ilaaliyo calooshana sida aan sheegayba gaskeeda uu hagaajiyo sababta caloosha gaska markay ka dhamaato oo gaasku diloodo maxaa bilowda in calooshii qofkii uu calool dhibaato haysto stomach problem uu ku dhacdo oo uu ku dhacdo maaragtay bloatingka waxa la yiraahdo caloosha iska karta oo qof waxa arkaysaa aan uur lahayn oo calool buuran ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado dumarka kaliya ma aha rag ama dumar midku dadka inta uu ku dhacdo qofku iyo caata inta kale ama calooshi stomach bloating baa la yiraahdaa bloating waxa weeyaan caloosha karsan yaa way foocsan tahay taas uu joojiyaa gaska uu ilaalinayaa sababtoo gaska san soo sheegayba gasku hadduu dhamaado waxaa ku xiga xanuunadaas oo noqon kara kansar xanuuno fara badan finanko ka soo baxa xiidmaha ay u dhaadhacdo waxaas oo dhan kadibna hadhowta ilaahay naguma keenay kansar bay leeyahay kareeyaan liverka waxaan anigu iska leeyahay maaha waa research lagu sameeyay dhaqaatiirna ay maaragtay soo bandhigeen iyo researcherska cilmi baarayaasha marka number 1 horta bal aynu gaaska iskaga daaweyna dad Soomaaliya hadaynu isli anna cunto aan ka lagu darin ma aynu cunno inagu waxaynu u cunaa sidaan sheegno aynu isla garanaynaba inaynu bariiska ku darsano xitaa waxyaalaha kale kuma darno marka bariiska inoo aad ku darnaa laakiin bariiska aynu ku darayno waxa ka sii wanaagsan leena bariiska marka ku dartid quality soo dhan uu dhamaana uu yaraanaya waxaana ka tanweynaanaya biyihii iyo bariiskii baa ka tanweynaanaya biyihii bariiskii baa ka tanweynaanaya laakiin markii aad isagoo saana 2 malqacadood ama hal malqacad koobka yar ee shaaha hadda idin tusaya yaami hore waan tusi jirtay sida biyaha loogu isticmaalo
inta iga cafiya laakiin dee waynu wada garanaynaa biyo karkarsan shaahi oo aad soo karkarisay oo aan caleen lahayn oo aan sonkor lahayn ba waxaad ku daraysaa 2 malqacadood oo ah kaamuun xawaash duuduub marka haddii alla idiin roon yahay allahuma salli calaa maxamed sidaas aynu uga wada faa'iidaysano waxa weeyaan waa very easy meel kasta waa laga helaa waa Soomaaliya wuu dhooban yahay khaas ahaan reer Soomaaliya hadday dhageysanayaan ma dhageysan doonaan waxaan rajaynayaa maraan tagayna intii maaragtay dadkii igu dhowdhawaa markasta waan uga sheekeyn jiray dhahan gaas maaragtay ka sheekeeyaan leanna waxaa wadankeenu ku badan cuntooyin ka dhacay cuntooyin aan la soo inspection la soo marin oo la soo habaynin leanna cunto markay ku soo dagayso oo cunto baggage si ay tahay cunto maaragtay moolgaraysan ay tahay wadamadu waxay sameeyaan wadan kasta uu iska eegaa waxaan wuxuu yahay xataa haddii taariikhdiisu okay tahay waa la eegaa waxa la sameeyaa inspection baa la mariyaa laakiin Allah waxaan ka baryaa wadankeena inuu maalin maalmaha kamid ah uu maaragtay heerka gaarsiiyo probably lama sameeyaan u maleynaya leanna wax kastaaba tayadiisi markaad xataa firto isagoo taariikhdu okay tahay tayadii ma laha dadkuna saasay gaas u wada qabaan ilmaha yarkaay gaas buu ka cabanaya maalin baa dhakhtar tagay dhakhtarka cunug yar oo maaragtay 5 jira gaas buu ka cabanayay islaanta konta ka jirta gaas bay ka cabanaysaa oo dadku misna gaas de sakaraad baa lala noqonayaa ya marka insha Allah aynu isku daaweyno xawaash duuduubku waa geedkaas meel kastu yaala waynu naqaanaa bariiskana ku darsanaa laakiin meesha caleenta ka cabaysid iyo shaaha qof kasto maaragtay qofkii awooda wax kasta oo xirban time in la geliyo bal ha isku 20 iyo 1 casho kaliya bal ha ka warkeena ama xataa 2 wiiq qofku waxaad isku arkaysaa maaragtay bedel bad caafimaadka ku arkaysaa wax isbedel caafimaadka ku arkaysaa wuxuu kaloo sida daacada neefta faraha badan oo maaragtay gadaal ka timaada oo aan de munaasibka ahayn oo gaas ku keenayo daacada iska baxayso gaas ku keenayo waxa soo dhan waxa kale meesha ku jirta afurka afka uraah way u wanaagsan tahay waxa kale u wanaagsan yahay arrimaha la xiriira dumarka laakiin video gaaran ka dhigi doona biidnillah wax kasta oo dumarka maaragtay ilma galeenka caadada waxaasna aad iyo aad buu qayb uga qaadataa kaamuntu ama xawaash duuduubku xawaash bariisku qolaba qofka sidoo afku ku garanayo sawirkiisana waynu dee u wada jeednaa marka saas iyo daawasho wanaagsan channelkana waa channelkiini aynu ka wada faa'iideysan jirnay anigana waa dadaalka idinkana waa ducada iyo subscriptionka iyo like biidnillah san aniguna aan u dareemo inaan wax faa'iideeyay maaragtay wixii aan aqaanay khibradaydana oo dhanka naturalka ee dhirta ku saabsan ma sha Allah aan ugu soo gudbiyo dadkayga afkayga hooyo anoo ku hadlayo wixii maaragtay aad fahmi weydaan ama afqalaad hadaan ku soo diro ama sidoo kale dadku hadalka u kala dhashaane aan maaragtay Soomaaliga saxnaan waayana waxaan leedahay ka raali ahaada talaya tusaale hoos igu soo qoro commentiga aad iyo aad baad mahadsantihiin waana xamdi shukriya idinkaga imaanaysa xamdi naturals thank you so much barakallahu fiikum baa idin leeyahay rabaanta intaan inoo ka harsana ilaahay inoo wada barakeeyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh walaalahayow aad baan idin wada jecelahay السلام عليكم again